wargorno soo dhaca waxa uu sheegayaa in dowladaha Turkiga, Sacuudiga, Masar iyo dalal kale ay ku guuleysteen qorshihii weynaa ay ka lahayeen in Imaaraadka Carabta laga saaro qaybo ka mid ah Soomaaliya. ugu dambeyn waxay ka baxeen dhanka iyo magaalooyinka Boosaaso iyo Berbera siday sheegayaan wararka la helayo Imaaraadka Carabtana waxay ka guureen saldhigyadii iyo goobihii ay sida gaarka u degnaayeen. ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraansi waxay u sheegeen in dowladaha Turkiga, Sacuudiga, Masar iyo wadamo kale Suudaan ay kamid yihiin ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay ku doonayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen isbaasiga Israa'iil wado ee Geeska Afrika. Somaliland ayaa markaan dareemaysa culays xooggan oo dhanka amniga badda ah iyadoona Puntland Saciid Cabdullaahi Dani afkii uu juuqda gabay sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan waxaana maalmihii u dambeeyay Saciid Dani uu dareemayo culays xooggan oo la xiriira ciidankii faraha badnaa ee tegay dhanka iyo magaalada Laascaanood soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ee ka qayb galay caleemasaarka maamulka waqooyi bari Soomaaliya ee dowladda federaalka sida rasmiga uga aqoonsatay inuu xubin ka yahay dowlad goboleedyada hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya. ila wareedyo kala duwan ayaa dhanka kale waxay noo sheegeen in saacadii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday dhaqdhaqaaqyo xooggan iyadoona wadanka Turkiga uu bilaabay qorshe weyn oo uu ku doonayo sidii uu maraakiibtiisa dagaalka iyo saldhigyo ugu sameeysan lahaayeen meelo ugu dhow dhanka xeebaha Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa ku horeelay dhanka iyo deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale dhanka Somaliland iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan ay xaqiijiyeen in maalmihii u dambeeyay xubnaha Imaaraadka Carabta ay aad u daaburanayeen gaadiidkooda iyo qalabkooda si ay ugu baxaan gudaha Soomaaliya. sargaal saro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in maalmahan ay socdeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyadoona ilahan kala duwan ay dhanka kale hoosta ka xariiqeen in saraakiisha mas'uuliyiintanba ay wadaan abaabul iyo qorshe weyn oo ay ku doonayaan qaabka ugu fudud ee looga hortagi karo isku dayada kala duwan ee dhanka Imaaraadka Carabta Geeska Afrika iyo meelo kala duwan adduunka uu ku leeyahay. waddanka Algeria ayaa fariintii ugu dambeeyay u diray dhanka iyo Imaaraadka Carabta isagoona u yeeray safiirkii u fadhiyay Abu Dhabi waxaana madaxweynaha waddanka Algeria Abdelmajid Tebboune uu sheegay in xilligan ay la kulmeen saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda wadamada isbaahaysiga noqday ee gooyay Imaaraadka Carabta sida danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Algeria isla markaana ay la wadaageen macluumaadka guud arrimahaas ka dhanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin xooggan oo arinta ka dhana iyadoona ila wareedyo kala duwan ay xaqiijiyeen in saacadii u dambeeyay muuqaalo kala duwan laga soo dubay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso xilligaas oo ay ka duulayeen diyaaradaha Imaaraadka Carabta ee leeyihiin militariga kuwaas oo bilaabay inay daabulaan agabka iyo qalabka ay kol hore deegaanada Puntland ay geeyeen. ujeedka ayaa ah in la dhaqan geliyo go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira inay sutaga Imaaraadka Carabta uu dalka ka baxo iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan ay sheegeen in saacadii u dambeeyay dowladda federaalka ay waday qorshe weyn oo ay ku doonayso qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafkaasi ah in Imaaraadka laga saaro guud ahaan Soomaaliya. ila wareedyo kala duwan ayaa dhanka kale warbaahinta Xuraansi waxay u sheegeen in saacadii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arintan iyadoona mas'uuliyiinta waddanka Imaaraadka Carabta ay sheegeen in ay ku jabeen qorshahoodii Soomaaliya taasoo keentay in culayska xooggan oo arinta ku sii kordho. ilahan kala duwan ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen abaabul iyo qorshe weyn oo la xiriira qaabka ugu fudud Imaaraadka Carabta ugu bixi karo Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka ay kor istaagtay in diyaaradaha waddanka Itoobiya laga saaro waa diyaaradaha dalka Itoobiya Imaaraadka Carabta uu u adeegsado qorshihiisa bixitaanka Soomaaliya taasoo ka dhigaysa in xukuumadda Abu Dhabi ay ku jabtay qorshe ahaan iyo siyaasad ahaan qaabka howlgalkaas uu noqon karo mid ay ku sii joogi karto gudaha Soomaaliya. Puntland, Somaliland iyo Jubaland oo sal adeeg muujiyay marka la eego taageerada Imaaraadka ay muujiyeen ayaa markaan waxay natiijadaasi noqotay hal bacaad lagu lisay iyadoona markaan uu noqonayo in uu guuleystay isbaahaysiga dhanka dowladda federaalka Soomaaliya jira waa sida ay sheegayaan xubno kala duwan. falanqayaal inta badan la hadlay telefishinada caalamka gaar ahaan kuwa ku hadla afka Carabiga sida Al Jazeera, Al Arabiya iyo kuwa kale ayaa waxay sheegeen in culayska xooggan ee Abu Dhabi ay dareemayso inay u sii dheer tahay cadaadiska xooggan ay kala kulmayso wadamada kala duwan ee caalamka. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashada iyo la socodka wararkayga.